السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي جميل كستاجوكتين سو دوادا channel كيني حارون طعنتها عافيماتك ولكن شكري آدم بولي أصحاب قيمها بدن إدنا على قصة صعد هودا سو دوادا دحايا إني قوم حسن أنت أصي جودو قلين توبيجينا وحين قاعد سنايا إن channel كذا كعصب تهاي سبسكرايب سميسيد لايك كريسيد شير كريسيد channel كا أمد الصومالي أدون كيا لو فري ما أنت توبيجينا وحربا إن كهالله inuu ogahay hooyooyin badan inay ka saayaan sida loo sameeyo laakiin ogaada hooyooyin yar ayaa jiro oo hadda ugu horeyso oo na ka siinin oo maybe hooyo xitaa lahayn hooyadeed dhimatay ama hooyadeed la joogin marka gabdho yar oo badan jiro oo aqoonin xitaa ani actually aan leeyahay ku arkay sida loo sameeyo laakiin maxaa waaye sida saxda ah ama sida caafimaadka uu ku jiro ilmaha yar markuu dhasho sida uga bedeli kartid xafaayada ama xal dhahaa pampaska sida u aqaantiin isagoo muuqaal ka soo qaaday meel sida inay tuso because oo ogahay hooyooyin badan ayaa markasta su'aalahaas kale i weydiiyo soo marka waxa waaye cunuga markaas u qabatid waxa la isaha waliga kor saas ha u qaadin hadaa saas dhahdid maxaa ka imaanayo cunuga wuxuu ku ridaa gaaska ilmaha habeenkii oo daacsanayaan oo siixaneen oo urdo la'aan maanta ku soo jeedaan waxa kale oo keeni kartaa abdominalka mindhicirka ayaa xanuujinaysa waxa kale oo keeni kartaa oo dhibaato ah ina cunuga markaas dhabarka wax ka soo gaarsiisid because ilmaha uu yar yahay wali lafihiisa ma adkaanin maxaa la dhahaa waa cunug waa wali kuna kale waaye ilmaha markay yar yihiin asaas u dhashaan zaid in loo ilaaliyo loo baahan yahay waan ogi hooyooyinka markay way dadaalayaan waxyaalo badan ay isku dayayaan laakiin sida caafimaad ahaan ay ku jirto ayaan rabaa inaan tuso soo marka cunugaaga dib u keentid hadhow dhawr ahaana weligaa mis cafinaysid waa xanuun badan waayo cunug caafimaad leh oo dhashay dana dhibaato ku soo gaarsiiyo ilaahna ma soo gaarsiinin weligeena ma arkin laakiin waan xadhayna uga faa'iiday gabdhaha yar Soomaalida adduunka meel kasta joogaan marka cunuga xal gees ayaa loo sameeyaa geeska see waaye cunuga hal gees ayaa u leexinaysaa sida ugu jeedinba videogan soo galiyay markaas waxa ka tiraysaa wipeskaagi ama waxa uga tiraysay maradaada wixii takalena sidoo kale saas ayaa la diidaa inaad dhahdeen asxaabta qaaliga ah hadhiin waliga saas dhahday hadii kale hore oo inii hadda miniga la hadlay gaaska iyo calool xanuun iyo dhabar xanuun ay cunuga yariska u keenaysaa ayaa la ilmaha yar markaas dhashaas geeskaas dhahaysaa markaas waa ka tirtiranaysaa bambaska nadiifka gelinaysaa saas uga dhaqaysa uga hagaajinaysaa bambaskana gelinaysaa haddana hadaa rabtid oo dhinaca kale sidahdo waxba ugu yeelan geeska kale loo leexiyaa asaasoo kale loo leexiyaa waa laga tiraa haddii kalena pampaska inta ka wada bixisid ayaa biyo qandac la soo qaataa waa la gashtaa waa lagu dhaqaa tawaala la soo qaataa waa lagu masaxaa isagoo nadiif ah waxa u marisay faasliinka ama saliid saytuunka oo marinaysaa marka u marisid cabfaayadaada ayaa soo qaadanaysaa waa u xiraysaa isoo hadaartidna waa u leeraysaa waa loo leeriyaa because marmar halkaas waxaa ka imaada infection badan inuu magaca arkaysa gadgaduuteen oo xanuun ku dhacay xitaa markaa uga tirtiraysid maxaa la dhahaa wipesyaasha kale oo zaid u carfeynin isticmaala because ilmo badan waxaa jira allergy ku dhashay oo hadda halkaas allergiga dib uga imaanayo soo marka ama biyo qandaca looga dhaqaa ama da biyo qandac markaas bini'aadanaata ka dhaqan marmar ilaa habeenkii saqbarkay kugu xaaraya biyo ma ku akyaalayaan qof iska xanuunsanaatay oo mul ah waxaa sameysaa biyo yar ay darmuuska biyo lagu soo shubtaa ama wipeskaas oo wipesyasha u carfina la soo gataa soo sida adiga ku roon adigana cunugaaga hadhow dhibaato kale u keeninin adigana maxaa la dhahaa ku fududeynayso howsha soo marka waxaan rajaynayaa asxaabta qaaliga meel kasta adduunka joogtiin inay gabdhaha Soomaalida hooyooyinka yaryar ee ka faa'iideystaan ee arkaan sheekarisiin saigana ilaa gabdho yar jiro oo hadda ugu horeyso oo ka seenay sida waligood arkin xitaa dad waxa jira waligood arkin xafaayad ama bambas ilmeel loogu siiba iyo gabdho iyagoo yar barteen because maybe hooyooyinkooda dhalaayo walaalooyinkooda dhaleen waxba la ahayn soo marka kuwa aniga taxan ka hadlaynaa ay ka seenin xitaa sida loo qabto ka seenin actually stress way marka kugu horeyso ilmo oo meel laga qabin ilmo ka seenaysaas aha stresska adduunka ugu weyn waaye marmar waa iska yaabisaa soo marka hadalkan inay nagu dheereeyo maraba asxaabta qaaliga soo sheegareeya like gareeya la qaybsada dadka Soomaalida adduunka meel kasta joogtiin si uga faa'iideystaan meesha nagala socotiin waa xarunta cuntada caafimaadka waa inuu soo daayo walaashin shukri aadan bule والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.